أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنالك أداوانيسان والكرم أوفيشيال فضلا هداد كعصب تاي سبسكرايب هداد هورانو لجوتين لايك انتا وحي انو تاي ديرجلين ما توحان إذن سوقت بين دونا قضوكو صابسان ناس نوجنت إلمها xuska naasnuujinta ee sanadlaha ah ayaa looga gol leeyahay in bulshada gaar ahaanna hooyooyinka lagu wacyigeliyo naasnuujinta faa'iidooyinka caafimaad uu ilmaha u leeyahay. haddaba maanta waxaan eegaynaa hooyo Aamino Maxamuud Nuur oo muddo 15 sano u shaqaynaysay wasaarad ka tirsan Puntland isla markaana ilmaheeda nuujin jirtay. hooyo Aamino ayaa sheegtay inay shaqaynaysay muddo 15 sano ah ayna tahay hooyo haysata 7 caruur ah. ku dhawaad 15 sano ayaan shaqaale ahaa markii aan shaqada ku soo biiray qoys ma lahayn balse hadda waxaan ahay hooyo haysata 7 caruur ah. runtii marka aad tahay hooyo kana shaqaynaysid shaqooyinka qaar waa ay adag tahay balse waajibaadka hooyada ayaa ah in ay mas'uuliyadda ilmaheeda ka soo baxdo marka hore ayay tiri Aamino. hooyo Aamino Maxamuud ayaa sheegtay in hooyooyinka marka ay dhalaan uu xeerka ka jira Puntland uu ogol yahay ilaa 4 bilood oo fasax ah. xeerka shaqada iyo shaqaalaha wax uu dhigayaa marka ay hooyada umasho ay xaq u leedahay 4 bilood oo fasax ah kadib marka uu fasax ka dhamaado waxa ay helaysaa fursad aad ilmaha u soo nuujiso muddo saacad ah oo aad ugu tari karto ilmahaada ayay tiri Aamino. hooyo Aamino ayaa sheegtay in hooyooyinka qaar aysan helin fursado fiican oo u fududeynaya inay dib ugu laabtaan ilmahooda si ay u nuujiyaan iyadoo sidoo kale ku dartay in hay'adaha qaar aysan tixgelin xeerka shaqada iyo shaqaalaha. mararka qaar laguma dhaqmo waxaa laga yaabaa hooyada in aysan haysan fursad u fududeeya in ay ilmaheeda naas nuujiso ama hay'adaha aan weliba bislayn ayay tiri Aamino. aniga waxa aan shaqada ka qaataa saacad fasax ah si aan guriga u tago oo aan ilmahayga u soo nuujiyo balse waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay sameeyaan hooyooyinka. qaar ka mid ah waxa ay u dhisaan caanaha waxayna u geliyaan talaagada kuwa kalena waxa ay ilmahooda u keenaan xarumaha lagu daryeelo oo ku yaala goobaha shaqada si ay u nuujiyaan ayay sii raacisay hooyo Aamino. caqabadaha ay badanaa gabdhaha shaqeeya kala kulmaan arrinkan ayaa ah sida ay Aamino sheegtay in aysan hooyooyinka badanaa helin xarumo waaweyn oo dawladeed oo ay ugu daryeelaan ilmahooda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.